ehelkiisiyaan nahay Soomaalidu waxay tiraahdaa imaam waxa uu run sheego walaalkiis annaga madaxweynaha waa uu run sheegaynaa waxaan leenahay mudane madaxweyne ku laabo miiska awal hore waxaan nooga maqnaa Puntland iyo Jubbaland iyo Somaliland caawa waxa ku darsantay walaalaheen koonfur galbeed ku darsamay yani waxay ku tusaysaa xaafadii madaxweynaha oo gaar ah inay hawsha ku soo aruurtay rahmaan rahiim alxamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ramadaan wanaagsan dhamaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho intaas kadib caawo shirkan jaraa'id waxaan u qabanay inaan uga hadalno arrimaha xaaladda wadanka ka taagan si guud si gaar dastuurka iyo wixii ku xeeran doorashada soo socoto iyo xaaladda magaalada Muqdisho dalka wuxuu maraa meel ay xaaladiisa aad u adag tahay oo kala wareeg siyaasadeed ah waxay u baahan tahay turid fara badan iyo xalin fara badan iyo aad in loogu dhimriyo wadanka meesha uu maraayo waa meel aan haddii maantay aan si miisaan leh oo caqli leh aan looga hadlin yani gaari karto yani meel aan wax laga qaban karin يعني waxaasoo dhan maanta waxay ag yaalaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta waxay ku dayeen dhowr fadhi oo kala duwan bulshada dadkeeda shacabkana waxay ku dayeen dhowr inay kala hadlaan warbaahinta kullina waxay ku qotomeen inay maaragtay noqoto yani xaalad degan madaxweynahana inuu aad uga madax adeegayo u muddo madaxweynaha waxa la kulmay golihii mustaqbalka la kulmay iyo siyaasiyiin ka madax bannaan warkiisa meel oo saarnaa wax aan lagu farxinay ka soo warinayeen sidoo kale bulshadii haday u tageen ay bulshada guud ahaan haday u tageen waxa laga waayay madaxweynaha inuu noqdo madaxweyne Soomaaliyeed oo dhageysto yani dadkiisa siyaasiyiinta ah markii laga waayay waxa dhacday in hadda ay isku tashtaan guud ahaan siyaasiyiinta ay u fahmaan madaxweynaha inay ka soo socon wax wanaag ah iyo maaragtay wax qeyr ah markii golaha mustaqbalka ay la kulmeen madaxweynaha waxay u sheegeen in maaragtay dalka oo u turo oo doorasho heshiis lagu yahay la aado oo dastuurkan oo maaragtay yani problemka keenay dib loo dhigo madaxweynaha uu ka madax adeegay si gaar ah haddana waxa u tagay dad golaha mustaqbalka kamid ahaa oo kamid yahay madaxweynihii hore madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur iyo xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble oo si ehelnimo ugu tagay annagana hadda waxaan nahay ehelkiisiyaan nahay Soomaalidu waxay tiraahdaa imaam waxa uu run sheego walaalkiis annaga madaxweynaha waa uu run sheegaynaa waxaan leenahay mudane madaxweyne ku laabo miiska xasiloonida wadanka ee siyaasadda waa aad u maaragtay u qasan tahay caawa waxaan dareemaynaa madaxweynihii koonfur galbeed oo kugu dambeeyay marka laga soo reebo dadka ehelka ah oo kula joogo yani Soomaali waa dad wax isku darsaday qabaa'il wax isku darsaday waaye awal hore waxaan nooga maqnaa Puntland iyo Jubbaland iyo Somaliland caawa waxa ku darsantay walaalaheen koonfur galbeed ku darsamay yani waxay ku tusaysaa xaafadii madaxweynaha oo gaar ah inay hawsha ku soo aruurtay marka mudane madaxweyne waxaan ku leenahay imaam walaalkiisa oo run sheego waa ku warcelinayna walaalaha waa ku yimaadeen si gaar ah kugu yimaadeen ayagoo siyaasiyiin ah oo kamida golaha mustaqbalka ayagoo golaha mustaqbalka ku jirana waa ku yimaadeen Soomaalidu oo dhan waa ku imaaday madaxweyne dastuurka aad leedahay waa la qabyatira oo qabyada inuu ka baxaa la rabaa yani wado uu uga bixi karo meesha ma taalo sababtoo ah dastuurka waxaa nagala dhaxeeyay bulsho Soomaaliyeed gaar ahaan walaalo naga maqnaa oo ahaa reer Somaliland haday maqnaayeen waxay ku maqnaayeen waxbay tirsanayeen wixii ay tirsanayeen waxa kamid ahaa faragelin lagu sameeyay yani siyaasadda wadanka iyo tabashooyin hore ay qabeen hadda marka waa ka sii dartay oo ayaga dastuurkii ku meel gaarka ah lagu qancinayo lagu maslaxayo ayaga waxaad dhahdo waxaan tiray qabyadii aan ka tiray ayagoo maqan yani waxay ku tusay marka dastuurka 60kii oo ayaga ay wax ku lahaayeen haddii uu meesha ka baxay mid ku meel gaar ah la sameeyo waxa la dhahay walaalayaal adinkaan la sugaa maalintii shacabkiina la helo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay isku furmaan la qabyatira maanta marka waxay maraysaa yani dastuurka inuu ku soo haray laba nin oo yani madaxweyneyaalka ah Hirshabeelle iyo Galmudug iyo madaxweyne Xasan Sheekh waa ognahay waa dad ehela waa hal xaafad waaye
soomaalidii lafta gareena u dambeeyay awalna walaalihii wax nagu darsadeen waa tageen marka waxaan leenahay madaxweyne waxaad sheegaysay inaad maaragtay ka shaqeynayso Soomaali wada jir ah hadda Soomaali inay kala tagtaan u jeednaa weli waqtiga ku haray caawo 58 bari ku hartay caawo 57 bari ku hartay 57daas bari oo ku hartay weli fursad waxa u haysataa inaad Soomaali isku celiso isu soo dhoobto intii yartahay u geysata aad ka maslaxdo oo ku celido teendadii oo aad u xalliso yani doorasho ay raali ku wada yihiin aad u mahadsantahay salaam annaga haddaan nahay dadka deegaanka oo Soomaali gogosha u ahay waxaan dastuurka oo noo joogaa 2012 oo noo joogaa waxa la qabyo tiray oo aan ogolnahay ama aan ixtiraafsanahay ma jirto hadii ay maqaamka magaalada Muqdisho iyadoon meel lagu sheegin dastuurka la qabyo tiray waxa la keenay qof nominated ah iyo qof maaragtay election ah la keenay duqa magaalada iyo gobornatoorihi waa la kala qaaday waxaan noocad markii in xuquuqdeena xaqeena meeshaas lagu dhuminayo sallallahu wasallam ala rasuulillah waxaan maaragtay caawa shirkan jaraa'id oo ka soo qayb galay aan uga hadli doono hadii aan la yiraahdo marxaladihii oo soo maray wadankeena inta hore oo walaalkay uu ka hadlay intaas aan la qabaa inta kale oo aan ka hadli rabo waxa waaye annaga waxaan la yiraahdaa dadka deegaanka gobolka Banaadir la yiraahdaa ana la dhahaa 2012 markii dastuurkan ku meel gaarka la sameeyay waxa ku qornaa in la yiri maaragtay magaalada Muqdisho maqaamkeeda si gaar ah labada gol oo ansixin doonaan 2026 iyo 2012 intuu dhaxlay dadka deegaanka waxay rajeynayaan rajo ku noolaayeen rajadiina waxa soo afjaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo golaha baarlamaanka oo hadda joogo oo mas'uuliyadeedana lagu xisaabtami doono hadii ay leeyahay maxaa yeelay dastuurkan wuxuu ka dhaxeeyay ummad Soomaaliyeed oo ka dhaxeeyay anagana dulqaadkeena intaan lagu soo gaaray hadaan nahay dadka gogasha ah haddana waxaa moodaa sabarkeena in loo fasiray si doqonnimo oo maaragtay nacasnimo maxaa yeelay maqaamka magaalada Muqdisho iyadoon meel lagu sheegin dastuurka la qabyo tiray waxa la keenay qof nominated ah iyo qof maaragtay election ah la keenay duqa magaalada iyo gobornatoorihi waa la kala qaaday waxaan noocad markii in xuquuqdeena xaqeena meeshaas lagu dhuminayo annaga haddaan nahay dadka deegaanka oo Soomaali gogosha u ahay waxaan dastuurka oo noo joogaa 2012 oo noo joogaa waxa la qabyo tiray oo aan ogolnahay ama aan ixtiraafsanahay ma jirto hadii aan leeyahay waxaan leeyahay madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka iyo maaragtay ra'iisul wasaaraha waxaan uga digaynaa inayna arintaas Soomaali aynu dhameyn annagana aan Soomaali meel la joogno Soomaali aan meel la joogno dastuurkana oo 12 oo noogu sameeyay oo ku meel gaarka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh